guri jannada ku yaallo. Waxaa tahay saxaabiyad, waxaa ka heshaa ugu raaxaysataa sheekooyinka dumarkii hore. Waxaad dib ugu laabanaysaa dhacdooyinkii soo maray adduunka adiga oo ka raadinayo wax la xiriiro qalbigaaga. Maantana waxaa la joogtaa mid ka mid ah dumarkii geesiyada ahaa ee qalbigooda ku xambaaray kelimada tawxiidka. Waxaa la joogtaa buurtii iimaanka iyo sabarka iyo adkaysiga. marwadii ku dhex nooleed guriga Fircoon ee qarin jirtay islaamnimadeeda. marwadaasi waxaa qabay mid ka mid ah raggii gaalnimadooda iyo xaddhaafka ahayd. gaalnimadiisu heer waxay gaartay dadkii inuu ku yiraahdo aniga ayaa ah rabbigiinii sarreeyay. arrintaas awgeedna wuxuu u dilay dad fara badan. gurigiisana waxa uu ka mid ahaa guryaha ugu dulmiga badan. waxa uu dili jiray ragga iyo carruurta, dumarkana waa uu ka leexan jiray, dadkana uu adoonsan jiray. saasay tahayna guriga Fircoon waxaa ku dhex noolaa dad uu iimaanka qalbigooda buuxiyey. dadkaasna waxaa ka mid ahaa xaaskiisa Aasiya bintu Masaaxim oo booska hooyanimo u gashay Nebi Muuse kana difaacday dilkii uu Fircoon go'aamiyey. waayo Fircoon waxa uu dili jiray wiil walba oo lagu dhalo Masar cabsi uu u cabsanayay carshigiisa. Fircoon ayaa waxa uu riyo ku arkay dab soo galayo qasrigiisa. riyadaasna waxaa lagu fasiray inay tahay wiil u dhalan doona reer bani Israa'iil kaas oo burburin doona boqortooyada Fircoon. Aasiya qalbigeeda waxaa buux dhaafiyey iimaanka, waxa ayna ku dadaali jirtay inaan laga arkin iimaankaas. waayo iyada ayaa Fircoon uga aqoon badneed dadka. waxay ogeed Fircoon inuu yahay daalin beenlow ah oo khiyaano badan, suurtagalna aysan ahayn inuu tolkiisa rabbi u noqdo ayna caabudaan. waayo Fircoon wuu xanuunsan jiray, wuuna daali jiray, danihiisa ayuu qabsan jiray, waa uuna seexan jiray. iyadana qalbigeeda waxaa ku abuurnaa inay leedahay rabbi iyada abuurtay. waxay kaloo ogeed inay leedahay rabbi xaq u leh in la caabudo. markay aragtay sida Nebi Muuse calayhi salaam uu ula doodayo Fircoon, ayna aragtay sida Haaruun calayhi salaam uu uga hadlayo hadal waadix ah, ayay gudaha ka yaqiinsatay in ilaaha xaqa ah uu yahay ilaaha Muuse iyo Haaruun. markuu iimaanka qalbigeeda buuxiyeyna waxa ay bilowday inay ka hor timaado Fircoon. waxayna ku tiri, Fircoonow, waan kugu kufriyey. wuxuu yidhi, maxaa leedahay? waxay tiri, waan kugu kufriyey, mana uu aabayeelayo. waxaan rumeeyey rabbiga Muuse iyo Haaruun, adigana waan kugu kufriyey daalim yahow. erayadaasi waxay ahaayeen kuwii ugu adkaa ee uu maqlo Fircoon. xaaskiisa ayuu ka maqlay tawxiidka. hadalkaas ayay ku tiri wejiga Fircoon, mana aysan ka leexleexan. maxay kula tahay inuu ku samaynayo? wuxuu bilaabay inuu garaaco, iyadana uma aysan aaba yeelin. intaas uguma ekaynin ee wuxuu ugu daray ciqaab iyo dhib. ciidankiisa ayuu ku yidhi, qaada oo geeya saxaraha cidlada ah. ciidankii ayaa qaaday iyada oo ka xiran gacmaha iyo lugaha. Fircoon ayaa u yimid oo yidhi, ma rabtaa inay ii soo laabato? waxay tiri, maya. markaasna wuxuu u kordhiyey ciqaabta oo saxaraha ayuu uga tegay hal maalin, iyadoo biyo la'aan iyo cunto la'aan ah. mar kale ayuu u yimid maalintii labaad, waxa uuna yidhi, diyaar ma u tahay inay ka laabato hadalkaaga, gurigaaga iyo diintaadana u soo laabato? waxa ay tiri, maya. ciqaabtaana waxaan ka helayaa sabar iyo iimaan. maalinkii saddexaadna uma uusan keenin cunto iyo biyo, wuxuuna uga tegay kulaalka qoraxda iyo saxaraha cidlada ah. adkaysigeeda iyo kartideeda waxa ay tusaale ugu noqotay mu'miniinta, oo Allah subxaanahu wa tacaala ayaa tusaale u soo qaatay oo yidhi, wadaraba Allahu mathalan liladiina aamanuu imra'ata Fircawn. Fircoon ayaa ciidankiisa waxa uu ka dalbaday inay qaadaan dhagax, meel sarana ay la koraan, kadibna ay ku soo tuuraan si uu madaxeeda u burburiyo. dhagaxii markay qaadeen ayna rabeen inay soo tuuraan, ayuu Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu tusay guriga ay jannada ku leedahay. taasi waa qisada marwadii hor istaagtay mid ka mid ah gaaladii ugu waaweynaa uguna beenta badnaa ee soo maray taariikhda adduunka. saxaabiyadda, amarka Alle waa mid mar walba fulaayo. Fircoon wuxuu laayay ilmo fara badan si uusan u imaanin wiilka yar ee cagta marin doona boqortooyadiisa. balse cunugii yaraa marka uu yimid, isaga ayaa lagu qasbay inuu koriyo. ma jiro qof bedeli karo qadarka Alle. xitaa ciidanka adduunka haddii ay isku yimaadaan ma bedeli karaan qadarka Alle.
u ogow si dhab ah ma jiro wax ka dayacmayo adduunka. Wax walba oo ku dhaafo waa wax aan lagu abuurin markii hore. wax walba oo qaadatana cidna awood uma lahan inay kuu diido. Saxaabiyada, wax walba Alle ayaa qadaray, ee isdeji. Xitaa risqigaaga haddii aad ka orodo, isaga ayaa ku soo raacayo. Arrinkaaga oo dhan Alle u dhiibo, kuna raali noqo qadarkiisa. Saxaabiyada, diintaada waa laftaada iyo hilibkaaga, ee ha ka tegin. Ogowna, wax walba oo aad ku bixiso jannada helitaankeeda waa wax raqiis ah oo aan u qalmin. Aasiya waxay ahayd marwada koowaad ee Masar iyo xaaska boqorka. Farteeda oo keliya ayaa ku filnayd in la fuliyo dalabkeeda, balse waxay isbarbar dhigtay qalbigeeda iyo adduunka. waxa ayna dooratay waxa Alle agtiisa yaalay. Adigana diintaada waxba ha ku iibsan gabaray. Saxaabiyada, ninkaaga si walba uu xun yahay ma noqonayo sida Fircoon. aan ku weydiiyey ma jiraa dembiga weyn inuu qofka sheegto ilaahnimo. xilliyada qaar waxaa laga yaabaa in lagugu imtixaamo nin aan wanaagsanayn ama ubad caasi ah, laakiinse waxaasoo dhan waa imtixaan. Allena waxa uu fiirinayaa sida aad ka yeelayso imtixaankaas, ee ha ku dhicin adigana. Allena waxa uu fiirinayaa sida aad ka yeelayso imtixaankaas, ee ha ku dhicin adigana.